بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إلهي بمهد اسكاله سبحانه وتعالى halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan tahay dunida daafaheeda waxaan rajaynayaa baaqan ama fariintan aan u dirayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dhammaan golayaasha kala duwan ee dowladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani ra'iisul baarlamaanka iyo golihiisa wasiirada waxaan leeyahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdigeed waxaan rabaa inaan halkan fariin yar aan ka soo jeediyo waddankeena Soomaaliya wuxuu ku dhisan yahay hab wada tashi ah wuxuu ku dhisan yahay hab is-ixtiraama wuxuu ku dhisan yahay shay waxa la yiraahdo wadaag waxaan rabaa marka dowladnimadeenu waxay ku hana qaadi kartaa oo horumar lagu gaari karo waxa weeye in ixtiraam uu leeyahay qofka waddankan u soo halgamay wax muuqdana ka soo qabtay walow la arki jiray dadkii hore markii la rabo in la ixtiraamo hadduu waalidku meesha ka baxo ilmaha uu ka tegay ama ilmahay sii dhaleen xushmad iyo karaamo ayaa loo hayn jiray marka waxaan leenahay oo waliba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya aan fariinta ugu diraynay ra'iisul wasaarihiisa haddaan nahay qabiilka uu ka soo jeedo Maxamed Cawaale Liibaan halyeeyga calanka buluugga ah ee qarannimada Soomaaliya maanta la huwanayo curiyey walow ayaaman ay soo baxeen dad calanka duraya oo wax kale ka soo afrikaynaya oo maaragtay dana kaloo gaara ka lahaa laakiinse ayagiina hadafkoodii iyo ajandahoodii la fahmay ninkii calanka keenay Allahu raxmado Maxamed Cawaale Liibaan waddanka Soomaaliya astaanta lagu yaqaano inoo alifay Soomaaliga ahaa halyeeyga ahaa qofka saas ah oo wanaaggaas waddanka Soomaaliya u galay ma haysto asaga iyo dadku ka soo jeedo xuquuqdii ay ku lahaayeen waddanka Soomaaliya xuquuqdaas oo ah matalaad golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka ma haystaan waxaan leenahay marka madaxweynaha jamhuuriyadda qofka kaliya oo maanta tal rabo inuu ilaaliyo codsiga shacabka waxa weeyaan waa ra'iisul jamhuuri waa madaxweynaha hadda jooga waxaan marka u diraynaa fariin ah haddaan nahay bahda uu ka soo jeedo Allahu raxmado halyeeyga Soomaaliyeed Maxamed Cawaale Liibaan 13 lagu daray gobolka Banaadir inuu ka siiyo halyeeyga Maxamed Cawaale Liibaan mudnaanshadii uu ku lahaa waddanka Soomaaliyeed siba waxaan u sheegaynaa Soomaali idilkeed meel ay joogtaba